wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa shaacisay in dugsiyada waxbarashada dalka la fasixi doono laga bilaabo 13 bisha Abriil 2021 laguna soo laaban doono 3 bisha July 2021 ee sanadkan. Wasiirka waxbarashada Somaliland Axmed Maxamed Deeriya Toorno oo ka hadlay ujeedka fasax ayaa sheegay in loo fasaxayo xanuunka COVID-19 oo mar labaad ku soo laba kaclay Somaliland iyo adduunka oo dhan. waxay soo saartay guddiga heer qaran ee coronavirus go'aamada soo socda. fasaxii sanad dugsiyeedka 2020 horaa loo soo dhigay waxaanu bilaabmayaa maalinta salaasada ee 13 bisha afraad 2021 waxaanu dhammaanayaa oo dugsiyada lagu soo laabanayaa maalinta sabtida ah ee 3 bisha July 2021 wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay ardaydu imtixaanka gali doonaan inta u dhaxaysa 3 Abriil ilaa 13 Abriil ee sanadkan. Wasiirka ayaa dhanka kale sheegay in imtixaanka shahaadiga ah la qaadi doono bisha June ee sanadkan 2021. imtixaanaadkii naqliga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2020 waxaa la qaadayaa inta u dhaxaysa maalinta sabtida ah ee 3 bisha afraad 2020 iyo maalinta isniinta ee ay taariikhdu tahay 12 bisha afraad 2020 taa macnaheedu waxa weeye dhammaan dugsiyada dalka ee dawladda iyo kuwa gaarka ah waxbarashada tooska iyo waxbarashada dadban imtixaankii naqliga ahaa ee sanad dugsiyeedkana inba ku jirno waa inay qaadaan 10 maalmood ee u dhaxeeya 3 bisha Abriil 2021 iyo 12 bisha Abriil 2021 imtixaankii shahaadiga ahaa ee laga qaadi jiray fasalada 8aad iyo fasalada 12aad waxaa la qaadi doonaa bisha June dhexdeeda laakiin maalinta la qaadayo iyo jadwalkiisa labadaba waxa soo saari doona xafiiska imtixaanaadka. waxa kale oo labada cishe ee soo socda oo 31 bisha March iyo 1 Abriil gobolada qaarkood waxa ka socon doona qaybintii kaadhadhka codbixiyaasha. sidaa awgeed waxay komishanka doorashooyinku naga codsadeen in dugsiyadii diiwaangelinta lagu isticmaalayay ay u isticmaalaan goobo lagu qaybiyo kaadhadhka codbixiyaasha. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abubakar. wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland maanta waxay soo saartay markaa go'aamo ay isku raaceen guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus oo si gaar ah u khuseeya markaa qaybta waxbarashada. waxaa la fasaxayaa markaa dugsiyada dalka dhammaantood laga bilaabo 13 bisha Abriil 2021 waxaana lagu soo noqon doonaa markaa bisha July 3 dhammaan dugsiyadu markaa intaan fasaxa la gelin waxaa waajib in imtixaanada qaadaan ugu dambeyn 12 bisha ee ardayda imtixaanada ka qaadaan si arday kasta soo imtixaankii naqliga ah caadiga looga qaaday oo markaa fasax ugu bilaabo. Cabdi Cali Abdikariim warka Saan TV.